wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha Mareykanka oo taageero siinaya ciidamada dawladda duqeyn la beegsaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Mubarak iyo Janaale. saraakiisha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay idaacadaha ciidamada qalabka sida in ay duqeyn ka dhacday saldhigga Mubarak lagu dilay 21 askari dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab oo isugu jiro waa sidii hadalka u dhigayeen saraakiil Soomaali iyo ajaanib. sidoo kale saraakiisha ayaa ku daray in duqeynta labaad ay ka dhacday deegaanka Janaale ee duleedka magaalada Marko isla markaana lala eegtay xubno ka tirsan Al-Shabaab qasaarana lagu soo gaarsiiyay. Al-Shabaab weli kama aysan hadlin wararka ka soo baxaya saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Shabeellada Hoose iyadoo lagu wado in maalinta beri ah uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb shirkii dib u heshiisiinta Galmudug ayuu sheegay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada in dhamaanba la soo dhameystiray liiskii ergada shirka ka qayb gali doonto. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Baadiyo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ayaa sheegaya dhinacyada hoolka shirka agabka la isticmaalayo iyo amniga intaba la diyaariyay isla markaana oo kaliya harsan tahay in shirka uu qabsoomo maalinta beri ah oo ku aadan bisha tahay 17. sidoo kale waxaa hadalkiisa intaasi ku sii daray dhamaanba ay soo gaareen liiskii ergada beelaha deegaamada Galmudug oo uga qayb gali lahayd shirka dib u heshiisiinta Galmudug hase ahaatee oo ay harsan tahay in la soo daabalo dhamaanba ergada shirka ka qayb galaysa la keeno magaalada Dhuusamareeb. laakiin haddana dhinaca kale marka la eego waxaa jira qaar ka mid ah beelaha deegaanada Galmudug oo weliba ka biyo diidan shirka kuwaasoo dalbaday in shirka dib loo dhigo lana xaliyo marka hore tabashooyinka ay qabaan oo ka jiro doodaas. wakiilada midowga Afrika IGAD iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa ka digay in haddii aan xaaladda cakiran xal loo helin ay xasilooni darro u horseedi karto maamul goboleedka ee Jubbaland. xubnaha ayaa ku baaqay in hanaan kaliya loo maro doorasho. war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha ayaa ka dambeysay in markii magaalada Kismaayo shalay kula kulmeen madaxda siyaasiyiinta maamulka Jubbaland iyo kuwa mucaaradka ah. xubnahaasi waxa ay dhinacyada uga baaqeen in ay ka fiijignaadaan wixii keeni kara gacan ka hadal isla markaasna khilaafkoodu ay ku xaliyaan si nabdoon ah. waxaa muuqanaya in weli is-afgarad buuxa aan laga gaarin khilaafka ka dhacay doorashooyinka sida looga heli lahaa musharaxiinta weli doonayay in ay ka qayb galaan doorashada, laakiin guddiga ayaa ku xireen shuruudo adag. doorashada hoggaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo 19 bisha Agoosto. hase ahaatee musharaxiintii mucaaradka ayaa iyagana laga cabsi qabaa in ay doortaan hoggaan u gaar ah.